كل ورباهنات كان أي وزارة أرمها جودها جمهورية الصومالي لانسي وذكرها وقوقتين وزير وزارة أرمها جودها يامني الصومالي لان مدن محمد كاهن أحمد يصير وكلاء وزير وزارة هرمرية عافات كجمهورية الصومالي لان مدن حسن محمد علي قافادي أي waxay ka hadleen mudaharaadkii maanta ka dhacay magaalada Cerigab oo xarunta gobolka Sanaag iyo sidoo kale marxuumkii maalintii shalay hayd lagu dilay deegaanka Ceriyaan oo ka tirsan gobolka Sanaag ugu horeyn baa labadani wasiir waxay taasi tiraayada u direen ehelku ka baxay marxuumkaasi geesta kalena waxay bulshada ugu baaqeen gobolka Sanaag inay xaalad dejiyaan isla markaana ay ilaashadaan amniga iyo horumarka waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo sidoo kale wasiirka caafimaadkuba in xaaladda ay dawladda Soomaaliland gacanta ku hayso isla markaana ay ilaa maanta ka wada shaqeynayeen maamulka amniga ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha marka ugu horeysa shilkii shalay Ceriyaan ka dhacay xumkii ku geeriyooday waxaan ka tacsiyadeynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii waxaan leenahay ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo ehelkiisina waxaan leenahay ilaahay samiriye imaan ha ka siiyo waxaa raacay intaas oo lagama maarmaana markay wax dhacaan waxaa lagama maarmaana in xaaladahana la dejiyo si deganaansho lana wax loo maamulo marka ugu horeysa waayeelka waxaan ka codsanayaa dhalinyaradii haweenka intaba in xaaladana la dejiyo deganaanshahana la ilaaliyo oo aanay dib u dhicin maanta magaaladii Cerigab wixii ka dhacay arrinka taladiisana la isla ogolaado arrintaas waxa loo baahan yahay in meydka la aaso waxaana loo baahan yahay madaxda gobolka joogta guddiga nabadgelyada ee gobolka oo ilaa maanta arrintan ku mashquulsanayd annaguna aanu arrintan ka wada hadlaynay in si degan wixii talo ah iyo wixii arrin ah iyo wixii maareynta arrimaha loo baahan yahay in laga sameeyo in la sameeyo khasaaro dambana inaanu maxaan ku dhahdaayay dhicin dadweynaha shacabka magaalada iyo gobolka Sanaag waxaan intaba ka codsanayaa kuna talinaynaa inaan deganaanshaha gobolka aan la ruxin nabadgelyada in la ilaaliyo sharciga inaan gacanta lagu qaadanin in waayeelku taliyo waxgaradku taliyo aqligu taliyo wixii arrinana laga wada tashado wixii go'aanihii la gaadhayana si nabadgelyo leh iyo si deganaansho loo gaadho aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan kan taxsiin uga dirayaa Jaamac Xuseen Toor oo shalay ku geeriyooday magaalada Ceriyaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dambigiisa dhaafo marxuumka jannatul firdawsana geeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay inuu samiriye imaan ka siiyo wixii alla keenaba wax ka daran buu hayaa waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu hawsha deganaansho ku gallo si fiican loo baadho sabaaristu soconaysana dadku ay istejiyaan waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada ilaashano nabadgelyadu inay magaalada Cerigab meel xasiloona inay ahaato dhibaatadii dhacdayna dhibaato inay ku korodhaa wax dheer ku jira ma jiraan waxaan leeyahay wixii maanta dhacayna ilaahay wixii ay wax ku gaadheen ilaahay ha booga dhayo wax dambena inaanay intaaynu ku dhaafin arrinkana ay xukuumaddu gacanta ku hayso wixii dhacayna la baari doono dadkuna ay sidaa ku deganaadaan ay maxaan ku dhahdaayay ku ilaaliyaan nabadgelyada waayeelka jooga maanta ku sugan magaalada Cerigabna waxaan leeyahay waa dhibaatadu daniino kuma jirto dhibaato maanta intii dhacday baa ugu yarayd dhibaatada daniino kuma jirto waxaan leeyahay in deganaanshaha iyo nabadgelyada gacmaha la isku qabsado ha laga wada qayb galo ha loo kaco dhalinyarada iyo dumarka iyo haweenkana waxaan leeyahay wixii waayeel keeni kari waayo keeni maysaani waxa aan idinkula talinayaa inaydan dhibaato ku sii darin ilaahayna waxaan ka baryayaa
inuu nabadgelyada inala garab galo oo inala qabto aad iyo aad baan maxaan ku dhahdaa ugu xunnahay wixii dhacay waana ka tacsiyadeynayna waxaana leeyahay intaa inuu ku ekaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu